caawa waxaan ka hadlaynaa Vida Davina. Vida Davina waa network company oo booming ah oo very fast ku socdo. Markii product la dhahayo 20 years waxaa iibinaya product kala duwan. I never seen this kind of product. Birina wax kala soo bixi doono. I'm not saying iyada ugu fiicnaan doonto forever, laakiin every day wax waa soo baxo. Plus compensation plan-ka waxa aan ku doortay compensation plan-ka waa product iyo fiican iyo compensation-kiisa markay isheleen la company oo waxa jiro product fiican sameeyay laakiin compensation-kooda waxa lacag ka samayn karo ama nolosheeda wax ka bedeli karo iyo in kala anay isu qusaysaa taas. Marka wax badan caawidi ka faa'iideynaya 5 ways to earn markano 5 siyaabood ayaa lacag looga faa'iido laakiin saddex qaybood aan ka soo qaadanaynaa. Saddexda qaybood waa 50 yaa la dhahaa. Retail-ka waa qofkii inuu galo markano magaciisa muxuu ahaa website-kaada galo magaciisa muxuu ahaa ama member noqdo ama meesha ugu iibisid $100 markuu isbeen gareeyo $50 lagu soo tuuraa. 200 markuu isbeen gareeyo $100 lagu soo tuuraa. waa simple waa 50% wax alla wuxuu meeshaas ka gato because adiga la'aanta wax ma gadan lahayn waa recognition waa lagu siin. Affiliate is more power and affiliate wuxuu kaga duwan yahay waa member oo sidaan oo kale uu dhismi doono oo haddana percentage la siin doono power la siin doono vacation la siin doono oo margin bonus la siin doono waxaas oo dhan everything. laakiin affiliate waxaan kasoo qaadanay qofkii aasaan garaysa haddeer $1,360 aan ku saangariyay qof caawa ii soo galay $600 lay siinaya aniga 50%. 680 baggage-kaan uu qaatay $300 lay soo tuuraa. 340 baggage uu qaatay $120. 135 ayaa ugu yar lagu soo galo which is okay waa kan hadda kusoo gashay kan hadda you are a member markano magaciisa ma company member ka tahay $135 lagu soo tuuraa. Example halkaan markuu bixiyo 1360 qofkii wuxuu ka faa'iidayaa markii lacagtiisu usoo noqoto $1,500 ilaa $2,400 uu ka faa'iidaya. waa 2 times ka badan markano almost 2 times way 50% haddana productiga haddana intaas aad ka faa'iidaysid qof bini aadan inuusan qasaarin ayuu company-gan ka shaqeeyay inkastoo aan la sheekaystay dadka leaderinka. Okay markaan u laabto business-kan wuxuu u dhisan yahay sida binary waa binary means 2 laba way waa inaad left iyo bidix waa inaad u keentaa magaciisa muxuu ahaa in between. qofkan ayaa sponsortay ayaa sponsortay 135 kan ugu yar uu kusoo galay $60 lagu siinaya 135. think about it 50% wili meelay ka dhacday ma arkin. I'm sure 3 bilood waxaan keenay 108 qofoodaan keenay qofkii $60 leegama siinay wax u dhow xataa no absolutely not. qof saddexaadaan keenay halkan jaa already waa la buuxiyey ma ku qori karo waa inaan halkaas ku qoraa eegaan anaa keenay kalaan keenay eega kale meesha ugu dambeysaan ku qori karaa underneath lay ku qori kartaa hadduu saaxiib ku leeyahay haddii kale business-kan xaasibnimo ma loogu talagalin most Soomaali aad u anfaca because qofkaas markuu wax noqdaa wax noqonaya marka lagu dhaho qofka product-ka markuu kaa gataa lacag lagu soo tuura marka lagu dhaho markasta inuu gato waa aadaab u soo dhaweynaysaa. 5taas qofood aan keenay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5taas aan keenay 5tooda min $2,000 ay sameeyaan waa 1 2 3 4 5 $10,000 ay sameeyaan each one $1,000 laga siinaa 50% margin bonus. waa kaas qof walba aniga aan keenay personal margin bonus waxaa laga siinayaa $1,000 laga siinaa 2,000 markuu sameeyo kana $1,000 laga siinaya 2,000 oo sameeya kana 2,000 oo sameeya 1,000 kana 2,000 oo sameeya kana 2,000 5tooda 10,000 ay sameeyaan $5,000 aan leh aniga ayuu company-ga siinayaa. Generation-ka labaad kan waa midka aniga personal aan keenay waa generation-ka labaad oo 10 qofood qofkii uu 1,000 sameeyay $200 aan ku leeyahay waa 20% waa kii hor muxuu ahaa 50% kana 20% waa 1,000 $10,000 ay sameeyeen waxaan sameeyay $2,000 meeshaas aan sameeyay $2,000 oo company-ga soo tuura waa second generation. Third generation, 4th generation, 5th generation, 6th generation, 7th generation, 10% ayadana la siinaya. ilaa up to 7% magaciisa muxuu ahaa generation
kambanigan weli kambani ka faasisan ama aan u dhigo weli ma arkin. waxaan idiin soo tuurayaa magacayga waa Dr. Maxamed Ibrahim, waxaan ku noolahay Toronto, hadda aan joogaa Mareykanka ku noolahay. numberkayga waa 614-822-7237. whatsappkayga waa kaas, ama telefoonkayga caadiga iga soo wici kartaa wixii su'aale. productiga ka hadal male. productiga markuu wanaagsanaaday ayaan competition banaankiisana haddana isoo jiitay. waxaan rajeynayaa inaad yes dhihi doontid. aadaan kaaga mahad celinayaa barnaamijka aad fiirsatay. habeen wanaagsan.